السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أخيارتي إدغي سنيساي كانال كينا فكرة ganacsi. nin u dhashay dalka Britain ayaa lumiyay lacag dhan 290 milyan oo dollar. Waxaan dhihi karnaa waa nin aad u nasiib xun. Haddaba waa sidee qaabka uu lacagta u lumiyay? Daawasho wacan. waxaa lagu magacaabaa James Howells. waa nin ku takhasusay cilmiga kombiyuutarka. wuxuu 2009 iibsaday 7500 xabo oo shilinka Bitcoin-ka ah oo xilligaasi la iibinayay halkii xabo 1 senti. wuxuuna ku keediyey harddiski uu lahaa. 2013 lacagtii Bitcoin-ka ah ayaa sare u kacday. lacagtiisa ayuu ku qiyaasay in ay gaartay 7.5 milyan oo dollar. James ayaa diiday inuu iska iibiyo isagoo damac ka lahaa in qiimaha uu sare u kacayo. muddo yar kadib waxaa cillad ku timid kombiyuutarkii uu isticmaalayay, qashinka ayuuna raacsiiyey. 2021 ayaa sare u kacay lacagta Bitcoin-ka wuxuuna gaaray 38,000 oo dollar halkii shilin. James waaga ayaa ku bariyey. waxaa la arkay isagoo goob qashin qub ah ka baadigoobaya harddiskigii uu tuuray 2013 taasoo ay ku keedsan yihiin lacag shilinka Bitcoin-ka ah oo gaaraya 7,500 xabo oo shilin ah, iyadoo la rumaysan yahay in ay hadda gaarayso qiimo ahaan 290 milyan oo dollarka Maraykanka ah. waxaana intaas dheer in lacagta Bitcoin-ka ah aan la soo ceshan karin harddiskigaas la'aanteed. James oo la wareysanayay ayaa raacsiiyey hadalkiisa in haddii harddiskiga uu helo xitaa uusan garanaynin lambar sireedka lagu furi lahaa harddiskiga. waa nin aad u nasiib xun. wax yar haddii aan sharaxaad ka bixino, lacagtan shilinka ah ee lagu magacaabo Bitcoin waa lacag digital ah oo lagu kala iibsado internetka. waa lacag mar aad iibsanaysid qiimaheeda kacayo iska iibinaysid. waa lacag shaqaysa. waxay ka mid tahay lacagaha coin-ka ah ee suuqa yaala sida shilimaadka internetka wax lagu kala iibsado. waxayna soo baxday 2009. hadda waxaa isticmaala guud ahaan dadka ku nool dunida. waxaan filayaa in aad wax badan ka faa'iideen. aad ayaad u mahadsantihiin.